السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود أواد داوديال رمضان مبارك بركوين كربي كوركينا هاته وبرنامج أنو مقعدنا تحناها نلشي صحابة كاس أنكو سوق قادن دون هل سحابي سلوا الكرامة في لقاء عدوهم وإلى الجنان حدتهم الأشواق فالأرض سجن والسماء كرامة ولأرضهم بدمائهم ميثاق للشام تهتز المآذن بالفداء فالله أكبر جيشها الدفاق والشام أجمل زهرة عاثت بها كف الليم وسامها الإحراق ذاقوا لأجل خلودهم ما ذاقوا أن يرجع العشاق سلوا الكرامة في لقاء عدوهم وإلى الجنان حدتهم الأشواق. waxaynu maanta wax ka taaban doonaa qisadii dhex martay saxaabiga Abu Hurairah radiyallahu anhu iyo shaydaanka. Abu Hurairah waxa uu dhahay nabiga ayaa mas'uuliga dhigay xoolo zakaa waxa ayna ahayd Ramadaan waxa yimid nin kaasoo boobay xoolihii waan qabtay waxaan ku dhahay nabiga ayaan ku sheegi waxa uu igu dhahay waxaan ahay nin baahan waxba aansan haysanin carruur baahan ayaan ka yimid waan u naxay waana iska sii daayay aroortii ayuu Abu Hurairah radiyallahu anhu waxa uu tagay nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga ayaa wuxuu ku dhahay ka waram Abu Hurairah ninkii aad xalay qabatay. Abu Hurairah waxa uu dhahay waxa uu ii sheegtay baahi kadibna waan iska sii daayay. nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay been ayuu ku sheegay waa ana uu soo noqon doonaa. Abu Hurairah radiyallahu anhu isagoo hadalka rumaysan ayaa wuxuu damcay inuu habeenka dama u sii galo dhufays. ninkii waa yimid Abu Hurairah waa uu qabtay haddana ninkii waxa uu dhahay waan baahanahay habeen dabana ma kugu soo noqonayo. Abu Hurairah radiyallahu anhu waa iska sii daayay mar labaadkii. aroortii ayuu rasuulka u tagay sallallahu alayhi wasallam rasuulka waxa uu ku dhahay ka warna Abu Hurairah ninkii aad xalay qabatay. Abu Hurairah waxa uu jawaabay jawaabtii uu siiyay maalintii hore. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku dhahay waa uu soo noqon doonaa ninkaas. habeenkii saddexaad ayuu Abu Hurairah isku diyaariyay inuu ninkii qabto ninkiina waa yimaaday. Abu Hurairah radiyallahu anhu waa uu qabtay haddana mar kale ninkii waxa uuna ku dhahay caawa ku sii dayn maayo waa fursadii ugu dambeysay. laba habeen oo horaad been ii sheegtay laakiinse caawa igama badbaadisid nabiga ayaan ku sheegayaa. ninkii waxa uu dhahay Abu Hurairah waxaan ku barayaa kalimaadkaasoo ku anfacaya ee iska sii kaydaa. Abu Hurairah radiyallahu anhu wuxuu ahaa mid aad u jecel cilmiga waxa uu ku dhahay hayeesooda aan ku sii daaya balaanka maqlay waxaad barisee. waxa uu dhahay shaydaankii waxaad akhridaa habeenkii marka aad seexanayso aayad kursi haddii aad akhrido aayad kursiga wax dhibaato ah ma arkaysid waana uu ii akhriyay. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من
يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. kadib waan iska sii daayay maadaama aan cilmi ka bartay. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaan aroortii dambe u yimaaday, waxaanu igu dhahay ka waran ninkii xalay aad qabatay. waxaan ku dhahay rasuulka ilaahay waxa uu baray cilmi, sidaas ayaan ku sii daayay. waxa uu rasuulku dhahay sallallahu calayhi wasallam waa beenaale laakiinse run ayuu ku sheegay. ma taqaanaa Abu Hurayra ninka aad habeenadan oo dhan aad qabanaysay? Abu Hurayra wuxuu dhahay rasuulka ilaahay ma aqaan. rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku dhahay shaydaan ayuu ahaa habeenadan oo dhan ninka aad qabanaysay. qisada waxaynu ka faa'iideynaa in aynu akhrino aayad kursiga markaaynu sii seexanayno. intaas ayaan ku soo koobaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.